بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الكسو دوادا ورركا ugu waaweyn ee dhanka ciyaaraha oo markaa idin soo gudbinaya xogta ciyaaraha qodobada aynu idin soo gudbinayna waxa kamid ah Eden Hazard oo waqti u qabtay in la dhameystiro heshiiskiisa Real Madrid kooxda Paris oo sheegtay inay la soo saxiixinayso ciyaaryahanka Everton Richarlison Tottenham oo laba ciyaaryahan ka doonaysa kooxda kubadda cagta Bournemouth halyeeyga kooxda Chelsea Frank Lampard oo ku sii dhawaanaya inuu macallin u noqdo kooxda Chelsea qodobadaasi wixii kale nagu soo kordhaya warkeena idinku soo gudbin doona balse inuu ka hormarno jarrada Daily Mirror ee dalka Ingiriiska ayaa waxay saaka daawacday in Eden Hazard oo ah ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Chelsea uu doonayo in heshiiskiisa oo la filayo inuu ugu biiro kooxda Real Madrid uu doonayo in la dhameystiro in ka yar isbuuc kadib finalka Europa League xidiga Chelsea ayaa qabstay ilaa 4 June in lagu xalliyo mustaqbalkiisa iyadoo Real Madrid ay xoojin doonto xiisaheeda xidiga reer Belgium iyagoo dalab ka gudbinaya inay la soo wareegaan ciyaaryahankan si kastaba labada kooxood ayaa qiimaha markaas ciyaaryahankan ay ku kala iibsanayaan waxa u dhaxeeya 26 milyan oo gani Real Madrid waxay ku doonaysaa 86 milyan oo gani halka Chelsea ay ku raadinayso lacag ku dhawaad gaaraysa 112 milyan waxa la filayaa in heshiiska meel dhexe la iskugu imaan doono isagoona Hazard uu codsanayo in arinta la soo gabagabeeyo halyeeygii hore kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard oo hadda macallin u ah kooxda kubadda cagta Derby County ayaa waxa markaas la xiriirinaya inuu macallin u noqdo kooxda kubadda cagta Chelsea Lampard ayaa markii ugu horeysay oo macallin u noqday waxa uu macallin u noqday kooxda imika oo macallinka u yahay ee Derby County isagoo markaasi keenay ciyaaraha playoff-ka oo Aston Villa ay dhawaan la dheeli doonaan garoonka Wembley-ka oo markaa Premier League ay ugu soo bixi doonaan laakiin war ay qortay Sun Sports ayaa waxa lagu sheegay in macallinka kooxda kubadda cagta Chelsea Sarri uu doonayo inuu dib ugu laabto kooxda Serie A dalka Talyaaniga gaar ahaan kooxda Juventus ayaa macallinka la xiriirinaya Lampard ayaa waxa isaguna markaasi qarka u saaran yahay Chelsea inuu macallin u noqdo oo hore ugu soo ciyaaray kooxdaasi oo lagu tilmaamo halyeeyada ugu weyn ee Chelsea soo maray taageerayaasha iyo waliba maamulka kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa u sacabtumaya Lampard inuu dib ugu soo laabto garoonka Stamford Bridge isagoo macallin ah kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain iyo Atletico Madrid ayaa si weyn waxay u doonayaan ciyaaryahanka Richarlison lagu magacaabo kooxda Everton u ciyaaro kooxda Everton ayaa 100 milyan ku doonaysa in ciyaaryahankan ay isaga iibiso hadii ay iibinayso ciyaaryahanka reer Brazil intii uu ku sugnaa kooxda kubadda cagta Everton ee gaar ahaan garoonka Goodison Park lagu magacaabo ayaa waxa uu dhaliyay 14 gool isagoo ciyaaray 38 kulan dhamaanba koobabkii isagoo ciyaaray waxaana loogu yeeray xulka qaranka Brazil sanadkan taa oo markaas si weyn isagoo laftii u farxad gelisay laakiin Everton 100 milyan ay ku doonaysaa ciyaaryahankan oo markii hore 40 milyan kooxda Watford ay ugu soo qaateen ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa 80 milyan waxay ku raadinaysaa laba ciyaaryahan oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Bournemouth ee dalkaas Ingiriiska labada ciyaaryahan ee kooxda markaa Tottenham ay doonayso ayaa waxa ay kala yihiin David Brooks ciyaaryahanka lagu magacaabo iyo Callum Wilson oo labada ciyaaryahan ay yihiin laf-dhabarta kooxda Bournemouth ee dhinaca weerarka uga ciyaara Pochettino macallinka kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa labadaas ciyaaryahan si weyn u doonaya hadii ay yimaadaan labadaas ciyaaryahan kooxda Tottenham ayaa waxa la sheegay in ay fasixi doonto ciyaartoy door ah oo dhinaca weerarka sida Laurent oo dalka Spain u dhashay oo door iyo 30 sano jir ah macallinka reer Argentine iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Pochettino ayaa waxa uu aad u jecel yahay ayaa liiri qaab ciyaareedka labadaas ciyaaryahan ee lagu kala magacaabo David Brooks iyo Wilson iyadoona xilli ciyaareedka soo socda la leeyahay garoonka kooxda Tottenham ay ka dagi doonaan labadaas ciyaaryahan sidoo kale wararka ayaa waxay inta ku darayaan in kooxda Bournemouth laftigeeda ay aad u raadinayso bedelka labadaas ciyaaryahan maadaama iyada laftigeeda dhaqaale aad u doonayso oo ciyaartoydaas inay iibiso ay diyaar la tahay